aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno ciidanka taraafikada ah ee tababarka u xirmay waa tiradii ugu badnayd oo intii ay Puntland jirtay tababar la siiyo 100 sarkaal iyo sarkaal xigeen baa maanta tababarka ka baxay arrintaasi waxa weeye guul weyn oo u soo hoyatay dawladda Puntland waa markii ugu horeysay oo tababarka noocaas la xiro oo hadda taagan yihiin horteena saraakiishii iyo askartii ciidanka taraafikada iyo gaadiidkoodiiba waxaan anigu aaminsanahay inay tahay guul u soo hoyatay Puntland dhibaatadii ka taagnayd wadooyinka yacni waxyaalo badan oo isbiirsaday baa jiray wadooyinka oo aan wanaagsanayn darawaliinta oo aan khibrad fiican lahayn calaamooyin badan oo aan wadooyinka ku qorayn tirada yar ee taraafikada iyo aqoontooda intaas oo dhan oo isbiirsaday baa jiray awal waxaanu rajaynaynaa dafcaddaani inay arrintaa daaweyso oo maanta dalku helo ciidankii ku filaa xagga ilaalinta nidaamka wadooyinka aad iyo aad baanu arrintaas u rajaynaynaa waa idinku allaha idinku guuleeyo baanu leenahay hawsha hadda maanta aad u tababarateen waa hawl aad iyo aad loogu baahnaa taraafikada waxa weeye qayb weyn bay ku leedahay xagga arrimaha nidaamka wadooyinka waxay kaloo qayb ku leedahay dakhliga soo ururintiisa waad ogtihiin oo maanta gaadiidka socda dalkeenna khaasan magaalooyinka waaweyn sida caasimadda iyo boosaaso iyo garoowe iyo gaalkacyo intaba waxa weeye gaadiid aad u fara badan qaladaad aad u fara badan bayna galaaniin waxa weeye haddaynu sharci ku maamulno ciidanka taraafikadu wuxuu noqonayaa dakhli soo ururiye qayb weyn ka qaata dakhliga soo gala ciidanka booliiska wax badan baad ku daaweyn karaysaaniin hadday noqon lahayd qalabkii isgaarsiinta hadday noqon lahayd dharkii ciidanka iyo hugoodii hadday noqon lahayd wadooyinka iyo nidaamintooda qalabkii wadooyinka lagu xiri lahaa ee digniinta lahaa waxaasoo dhan baad ku filaanaysaan